waxaan maanta ka hadli doonaa gebagabada dunida qarniga soo socda. Sanadka cusub ee 2020 wuxuu ku bilowday jawi aad u qurxoon, dadkuna waxay sugayeen dhalashadiisa. Saacado badan ayay u soo jeedeen si ay qayb uga noqdaan soo dhaweyntiisa. Qaarkood dabaaldegyo ay toddobaadyo ka hor sii qorsheeyeen ayay ku qaabileen. Jawi farxadeed ay fanaaniin qayb ka ahaayeen ayay ku soo dhaweeyeen. Dowladaha ayaana agaasinka ugu weyn ee marxabeyntiisa horkacayay, sida dabciga qofka xisaabtamaya isla markaana doonaya inuu guulo gaadho. Ay tahay dadka qaar waxa ay adeegsadaan qorshe hawleedka sanadka cusub ay qaban doonaan. Jadwalkii ay ku wadi lahaayeen waa ay dhinac dhigeen, taasoo ka dhigan inay bil kasta shaqo gaar ah qaban doonaan. Sidaas oo ay tahay, haddana wax kasta kuma xisaabtami kartid inay kuu noqdaan sidaad rabtid, maadaama maamulka adduunku uu ku jiro gacan aanay cidna waxba ka qaadi karin, isla markaana aanan cidna kala tashan waxa uu sameynayo. Kaasi waa abuuraha kownkani Allah. Inkastoo rajadii dadku ay xooganeed sida malaysiga fiican uu ina barayo, haddana ififaalihiisu aad uma sii ridnayn. Dhammaadka sanadkii tegay iyo maalmihii hore ee sanadka cusub waxay soo bandhigeen sidii aanay dunidu u wanaagsaneen waxay dadku filanayeen. Haddaba maxaa isbedelay mar hadduu jawigu ku socday hab aad u qurxoon oo dadku soo dhaweeyeen? Sanadkan wuxuu ku bilowday si ka duwan sanadihii hore, waxaana la filayaa in ay dunidu gabagaba marayso. Tani kama dhigna inay sanadkan gudihiisa wax walba soo afjarmayaan si ay dunidan u soo idlaato. Bilowgii sanadkan waxaa laga cabsi qabay inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka oo ka qarxi rabay Bariga Dhexe, kaas oo ay saameyn ku yeelan lahaa dunida inteeda kale si toos ama si aan toos ahayn. Mareykanka iyo Iiraan oo ay kala weheliyeen xulafadooda ayaa ku dhawaaday in ay safara saaraan kadib dilkii generaalkii reer Iiraan ku baxay gacantii Mareykanka waa Qaasim Suleymaaniye. Dabkii kolcay keymaha Australia ayaa isna ahaa dhacdo kale oo aan u fiicnayn nolosha koonkan. Wuxuu soo bilowday dhammaadkii gugii tagay ee 2019. Saameyntiisu waxay u soo talowday sanadkan. Wuxuu yeeshay raad aad u weyn kadib markii ay ku naf waayeen nus milyan xayawaanaadka kala duwan ahi. 32 qof ayaana iyaguna ku dhimashooday, waxaana ku burburay 25,000 oo guri, waxaana dhulka la sinay 21 milyan oo hektar oo keymo ahi, taas oo keenaysa in ay cimilada adduunku isbedesho oo ay ka sii kululaato heerkeedii hore. Isla bilowgii sanadka cusub, caalamku wuxuu wajahay dhibaato kale oo hor leh, kaas oo ah dilaacitaankii caabuqa coronavirus COVID-19 oo bilowgiisii ka soo bilowday dalka Shiinaha, balse si fudud qaaradaha ugu kala socdaalay, kaas oo noqday dhibaato loogu hadalhaynta badan yahay sanadkan cusub. Waxaa ku geeriyooday in ka badan 100,000 oo qof, halka uu saameeyay dad ka badan 2 milyan oo qof. Sidoo kale wuxuu keenay dhibaato dhaqaale oo aad u weyn oo caalamka oo dhammi wada taabatay. Waxaa kaloo sanadkan laga cabsi qabaa in ay dilaacaan caabuqyo cusub kuwaas oo galaafta nolosha dad badan. Hantavirus isna oo ah caabuq kale oo Shiinaha ka soo baxay ayaa cabsi weyn dunidu ay ka qabtaa. Saynis yahanadu waxay sheegeen in heerkulka dunidu sii kordhayo sanadba sanadkii ka sii dambeeya. Taariikh ahaan heerkulka dhulku wuxuu u isbedelay, waxaanay sheegeen khubaradu in ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee wax looga qaban lahaa dunidan sii kululaanaysa. Sidoo kale saynis yahanadu waxay sheegeen inuu magnetismka dhulku u dhaqaaqay si xawliyan uu ku socdo. Tani waxay la micno tahay in ay jihooyinka boosku isku bedeli doonaan. Isbedelka jihooyinkuna waa qorraxda oo galbeed ka soo baxda maalin ay diintan hore noogu sheegtay in ay tahay maalinta aan toobad la aqbali doonin. Hay'adda NASA waxay sheegtay, hay'adda cilmi baarista hawada sare oo Mareykanka u qaabilsan ee NASA waxay sheegtay 29 Abriil marka ay saacadu tahay 8 subaxnimo waqtiga Geeska Afrika inuu adduunku ku soo wajahan yahay meero aad u weyn oo dhulka aad ugu soo dhawaanaya. Waxaana suuragal ah xisaabaha la sameeyay inuu meerahaasi dhinac ka mari doono dunida. Stephen Hawking wuxuu yiri, haddii bini'aadamku 100 sano ee soo socda uu raadsan waayo meero kale, waxaa dunida soo afjaraya walaac xagga hawada sare uga timaan doonta, ama cudurro safmara ayaa dadka soo afjari doona noloshooda adduunka. Bilowgii hore saynis yahanadu waxay rumaysnaayeen in aysan dunidu dhammaasho lahayn oo iska sii socon doonto, sida ay ka mid ahaayeen filosofiyiintii hore ee Giriiga iyo reer galbeedka inta badan. Laakiin hadda waxay garwaaqsadeen inay qasab tahay inay bardhamaad leedahay dunidan si ay u leedahay barbilowga. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay in aakhiru zamaanka ay badan doonto dhimashadu, dhulgariirada, duufaanada sida ba'an wax u halaaga, isla markaana cudurradu ay faafi doonaan. Haddaba miyaanan maanta ku sugnayn xaaladaas? walaal mar walba alla ka tala saaro kana bari inuu qaatimo wanaagsan alla kugu dilo. walaa tamuutunna
إلا وأنتم مسلمون.